magaalada Makkatul Mukarrama waa magaaladii uu ku dhashay nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam. magaaladan waa magaalada ugu da'doon inta taariikhda xustay dunida korkeeda, waana halkii ugu horeysay hal lagu cabdo dhulka korkiisa. magaaladan waxay ku taalaa wadanka Sacuudi Arabiya, saxaraha weyn ee u dhexeeya badda Cas iyo Suuriya. Makka, Madiina iyo Jiddah waa magaalooyinka wadnaha u ah Sacuudiga, sababtoo ah waa halka dhaqaalaha ugu badan ka soo galo wadanka. muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan kaga hadli doonaa taariikhdii suubanayd ee nabigeena sallallahu alayhi wasallam. inagoo marnaba aan kusoo koobi karno muuqaalkan aadka u gaaban. magacaygu waa Maxamed Cali, kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhashay magaalada Makka qarnigii 6aad 22 Abriil 570 miilaadiga, sanadkaas oo loo yaqaanay sanadkii maroodiga ama 12 Rabiicul Awwal. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhashay kadib waqtiga salaada subax la tukado inta aanay qoraxdu soo bixin. nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii wuxuu dhashay 545 miilaadiga, wuxuu dhintay bilo ka hor inta aanu dhalan nabigu sallallahu alayhi wasallam 570 miilaadiga. dhalashada nabiga aad ayaa lagu farxay qabiil ahaan iyo qaraabo ahaanba sida caadadu ahayd, sababtoo ah qarniyada hore waxaa la isugu faani jiray tirada qabiil oo ahayd habka keliya ee waqtigaas jiray lana dugsan jiray. abtirsiimada nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam waxaa la odhan jiray Maxamed bin Cabdillaahi bin Cabdilmuttalib bin Haashim bin Cabdimunaaf bin Qusay. ka hor inta aanu dhalan nabiga hooyadii waxay ku riyootay iyadoo dhashay wiil la yidhaahdo Axmed. hase ahaatee markii uu dhashay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa awgii Cabdulmuttalib la weydiiyey magaca wiilka uu awowga u yahay, waxaanu ku jawaabay waxaa la yidhaahdaa Maxamed. haddana waxaa la weydiiyey sababta uu magacan u doortay. mar labaad wuxuu ku jawaabay magacan micnihiisa oo ah mahadiye, kii ilaahay u mahad celinaya ayaanu doortay. sida dhaqanka carabtu ah, carruurta waxaa loo dhiibi jiray gabadh aan hooyadu ahayn oo soo nuujisa naaska. sidaa darteed waxaa loo dhiibay nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadh soo nuujisa naaska oo la oran jiray Xaliimatu Sacdiya muddo 2 sano ah. Xaliima waxay bilowday shaqsiintii naaska, laakiin waxay aragtay waxyaabo badan oo mucjisa, sidaa darteed waxay xaqiiqsatay inuu ruuxan yar yahay qof barakaysan. waxay arrintu sidii ahaataba waxaa dhammaaday waqtigii jiiska ee ahaa 2 sano. hase ahaatee Xaliima waxay nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii ka codsatay in loo dhiibo 2 sano oo dambe. Aamina oo ahayd nabiga hooyadii way aqbashay codsiga Xaliimatu Sacdiya. muddo kadib waxaa dhintay nabiga hooyadii Aamina. waxaa markaa mas-uuliyaddii nabiga sallallahu alayhi wasallam qaaday awowgii Cabdulmuttalib. markii nabiga sallallahu alayhi wasallam gaadhay 8 sano 8 bilood iyo 10 cisho waxaa dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgii sanadkii 560 miilaadiga oo ahaa hogaamiyihii beesha weyn ee Quraysh kana mas-uul ahaa kabcada. Abu Taalib wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii ruma. markii uu awowgii dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa mas-uuliyaddiisii qaaday adeerkii Abu Taalib. intii uu ku sugnaa guriga adeerkii Abu Taalib, nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu bartay habab kala duwan oo shaqo ah.